iyo saaxiibayaal waxaan isku leegi doonaa xogaha muhiimka ah ee ay tahay inaad ogaato si aad ogaato waxay la micno tahay in maanta Bible aad adeegsan karto balse ka hor intaanan saaxiibayaal xogaha muhiimka u gudbin waxaan doonayaa inaan isla xaqiijino oo aan isla aragno in Bible loo furay deegaanada Soomaalida asxaabta badankoodu way og tahay anu waxaan joogaa deegaan ka mid ah deegaanada Soomaalida haddii aad shaashada kombiyuutarka hadda eegtaan waxaan joogaa website-ka loo yaqaano Bible muhiim ah website-ka inaan joogo haddii xitaa teleefankayga oo halkan yaalla idin tusiyo Bible hadda waan furi karaa oo uu ii shaqeynaya so ama teleefon isticmaal ama sideeda casharka aan idhaahdeen muuqaalkan kombiyuutar isticmaal oo idin tus website-ka Bible haddaan booqan karo micnaheedu waxa weeye application-ka Bible teleefankayga waan ku shubi karaa waanan ku isticmaali karaa haddaba maadaama aan isla xaqiijinay inuu hadda Bible shaqeynayo oo deegaanada Soomaalida laga isticmaali karo teleefankaagana aad ku isticmaali karto waxaan doonayaa inaan gudbo maxay la micno tahay in Bible hadda la inoo furay oo hadda deegaanada Soomaalida ka shaqeynayo saan saaxiibayaal u fududeeyo fahamka markii ugu horeysay saaxiibayaal aaladda Bible way ka shaqeyn jirtay deegaanada Soomaalida ka hor inta aan la xidhin 2022 way shaqeynaysaa waxaa jiray muuqaalo aan duubay oo sida loo sameeyo sida loo isticmaalayo la wadaagay kanaalkeeda kula wadaagay isku dayay muuqaalkooda qaybta hoose inaan soo dhigo kadib intaa kadib baa Bible laga xidhay deegaanada Soomaalida haddaba Bible markii uu hore ugu furnaa deegaanada Soomaalida qofka Bible isticmaalaya ee deegaanada Soomaalida jooga hal awood oo kaliya ayuu lahaa halka awood waxay ahayd inuu isagu internetka lacag ku diro ama inuu isagu lacag diro laakiin qofka deegaanada Soomaalida jooga isaga lacag looma soo diri kareenin iyadoo Bible la isticmaalayo so kaliya waxaad awood u lahayd inaad adigu internetka wax kaga iibsato qof Bible isticmaalayo oo wadan kale jooga aad Bible lacag ugu dirto laakiin adiga Bible lacag inta lagu soo diro kuma aysan soo gaaraynin sidaas ayuu ahaa sida Bible uu markii hore u shaqeyn jiray markaad rabto inaad Bible isticmaasho ee aad lacag ku dirto waxaad u baahan tahay in aad leedahay card master card marka ama inaad bank account leedahay ama inaad haysataa master card ay bixisay shirkad kale marka ama Wafi baad haysan ama Premier Bank baad haysan ama bangiyada kale ee deegaanada Soomaalida ka jira ayaad haysanaysaa marka way farbadeen hadda bangiyada master card ka bixiya hadda laba baan tilmaamay mid IPS la yiraahdo bank inuu jiray way badan yihiin haddaba waxaad u baahan tahay inaad master card yeelato kaarkaaga ayaad waxaad ku xiriirinaysaa akoonkaaga Bible-ka ah kadibna Bible baad lacag markaas sidaa u diraysaa sidaas ayaa markaa Bible loo isticmaalayo aan u soo noqdo markaa haatan Bible waa laga xidhay deegaanada Soomaalida waqtigaa kadib mar labaad waa loo furay maxaa isbedela saaxiibayaal hadda Bible waa loo furay deegaanada Soomaalida waanaynu isticmaali karnaa laakiin ilaa hadda awoodda Bible aynu leenahay waxa weeye waa sidii markii hore Bible ka furnaa deegaanada Soomaalida in aad adigu lacag diri karto oo aan adiga lacag lagu soo diri karin adigoo Bible isticmaalaya hadda markan la furay lacag laguma soo diri karo laakiin adigu lacag waad diri kartaa waxa laga yaabaa asxaabta qaar inay isweydiinayaan VPN baan isticmaalaya bal gadaal baan kelmad ka odhanaya VPN-ka laakiin sida official-ka saxda waxa weeye adoo deegaanada Soomaalida jooga haddaad Bible samaysato Bible sidoo arko qofka ugu diiwaan geliyo wadanka waxa weeye Bible xoogaya meesha aad joogto markaad samaysanayso kadibna meesha sharciga uga yaala ayuu ku dabaqayaa akoonkaaga adoo deegaanada Soomaalida jooga haddaad akoon Bible samaysato akoonkaaga lacag waa laga diri karaa laakiin lacag laguma soo diri karo sida way sida Bible uga shaqeynayo deegaanada Soomaalida waxaan u imanayaa markaa su'aal la isweydiiyo oo ah haddii aan isticmaalo VPN ka waran VPN waad isticmaali kartaa VPN wuxuu ka dhigayaa dadka aan garanaynin meesha aad joogto meel aan ahayn inaad joogto oo kale ayuu ka dhigayaa oo Bible xumoodaya inaad meel kale joogto isagoo IP address-kaaga bedelay waxa IP address la yiraahdo aanad garanayn haddaba haddii aad VPN isticmaasho hal mushkilad baa markaa jirta VPN haddii aad isticmaasho waa laga yaabaa inaad Bible lacag ka diri karto laakiin laba mushkiladood ayaan rabaa muuqaalkan inaan kuu sheego marka koobaad Bible wuxuu xaq u leeyahay oo jira sharcigoodu waxa weeye waxay xaq u leeyihiin haddii akoonkaaga ka shakiyaan inay joojin karaan lacagta haddii marka akoonka adoo lacag ka diray ama lacag lagugu soo diray ay ka xayiraan oo ay u badanayso haddii ku arkaan VPN isticmaalayso waayo ma ogola VPN-ka waxa dhacaya marka lacagtaas sidaasay kaga xayirnaanaysa lama soo celin karayo waa laga yaabaa in meesha laga diray lagu celin karo laakiin adiga marnaba ha rajayn lacagta inaad kala bixi karto waliba waxay u badan tahay lacagta lagu xayiro inaan lala bixi karin Bible-ka marka waxa weeye haddii ay ka shakiyaan waa sidaa soo lacagta aad dirayso waa inaad ogaato
haddii lagu joojiyo in laga xiri karo. Paybal waxay isticmaashaa computer xitaa dad maaha computer ogaanaya inaad VPN iyo waxyaabo khalad ah samaynayso kadibna lacagta kaa joojinaya. So lacagta si lagugu soo daayo wax lagaga baahan yahay document dawladeed sida inaad leedahay sharci, passport, national ID card iyo waxyaabaha la midka marka wax way taas horta wayna jirta wayna ogaato. Mushkilad labaad ba marka jirta iyaduna oo la xiriira marka aad Paybal lacag dirayso. Haddii lacagta aad dirayso aad ka dirayso Mastercard-ka ay kugu jirto oo ah mid uu bixiyay bangi deegaanada Soomaalida ah, Paybal way u fududahay in uu ka joojiyo inaad lacagta aad dirin in lacag lagu soo diro aan idhaahdo ama inaad lacag la baxdo. Sababta wuxuu arkayaa haddii lacag lagu soo diro oo VPN aad isticmaasho oo lacagta istaahil la bax ama account aad VPN isticmaasho aad samaysato lacag lagu soo diro istaahil kula bax Mastercard bangi deegaanada Soomaalida ku siiyo, Paybal still wuxuu arkayaa in bangiga lacagta u direemaysa uu yahay bangi ka diiwaan gashan deegaanada Soomaalida. Wayna u fududahay inuu lacagta joojiyo wuuna ogaan karaa sida lacagta lagu joojinayo marka awood bay leeyihiin bangiyada serviceska Paybal oo kala inay ogaadaan Mastercard iyagoo eegaya ama bangiga lacagta ay gaadhiso in ay ogaan karaan. So labadaas waxa weeye markaana waxa sababaya in aan lacagta la ogolaanin in laga saaro because waxa la arkay lacagta still inay aadiso deegaanadii Soomaalida. So labada qodobana waa laba qodob oo ay muhiim tahay in aad ogaato marka. So hadaba doorashada kaliya ku furan hadda waxa weeye Paybal inaad adigu Paybal u isticmaasho aad internetka lacag ugu dirto. waana mid ugu muhiimsan hadda aad uga faa'iideysan karto oo ah markaad internetka meelaha lacag ka doonaya ama meel aad ku iibsanayso internetka oo aad ku kalsoonayn aad joogto Paybal haddaad ku iibsato kalsoonidu way sareysaa because Paybal haddaad meel internetka xitaa aanad ku kalsoonayn aad wax ka iibsato still lacagtaada cid ma qaadan karayso. laakiin haddaad Mastercard-ka geliso service internetka oo aanad ku kalsoonayn dee xogta Mastercard-kaaga waad siisay still lacag way la bixi karaan iyagoo aan adiga ku soo marin marka information ka siiso. So halka doorasho kaliya Paybal hadda uga faa'iideysan kartaa. Muuqaalkan saaxiibada waqtiga aan tijaabiyay Paybal waxa ka banaan waynta haddii wax xog ah oo update dambe ah uu ka soo kordho waxaan kula wadaagi doonaa muuqaal soo socda. Muuqaalkan intaan ku soo